xaaladda magaalada Muqdisho ayaa caawa aan caga badan ku taagnayn kadib markii abaabul ciidan uu bilaabay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka injineer Maxamed Xuseen Rooble. khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare hore Rooble ayaa maraya meeshii ugu xumayd iyadoo labada dhinac ay wadaan qorshayaal iska soo horjeeda. injineer Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka go'an in dagaal gacan ka hadal ah uu la galo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo bilaabay abaabul ciidan iyo hub aruursi waxa uuna u qayla dhaamiyay beeshiisa iyo siyaasiyiin ku heeb ah si ay u difaacaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo la magac baxay badbaado qaran ayaa caawa isku fidiyay isgoyska dabka Siigaale ilaa agagaarka kontaroolka laga ilaaliyo sayidka kuwaasi oo sheegay in ay difaaci doonaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble isla markaana uu isaga u yeeray. Cabduqaadir Warsame oo ciidankaasi hogaaminaya ayaa saxaafadda kula hadlay agagaarka isgoyska sayidka waxaana uu sheegay in ay dib u laaban doonin ilaa xaaladdan ay meel u dhacdo. ninkan ayaa sidoo kale sheegay in ciidankooda ay ku qasbanaadeen in dib ay ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho isla markaana aysan ilaa iyo Farmaajo gacanta ku soo dhigin aysan dib ugu noqon doonin halkii ay ka yimaadeen. waa tallaabooyin dalka u horseedi kara burbur iyo dagaal sokeeye oo uu qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka injineer Maxamed Xuseen Rooble. xogo aan helayno ayaa sheegaya in 11 gaari oo ka soo baxay furimaha dagaalka ee Shabeellada Dhexe ay hadda soo gaareen magaalada Muqdisho gaar ahaan aaga xaafadda Mirinaayo. ila xog ogaal ah ayaa ii xaqiijiyay in ciidankan ay degi doonaan fariisimihii ay ku lahaayeen aaga Mirinaayada. Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa wada abaabul dagaalkii ugu dambeeyay isaga oo doonaya in khilaafka kala dhaxeeya madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u bedelo gacan ka hadal. dhinaca Villa Soomaaliya ma jiro abaabul ciidan oo uu wado madaxweyne Farmaajo balse waxaa suurtagal ah in madaxweynuhu uu caawa soo saaro ama ka hadlo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo tallaabooyinka guracan ee uu qaadayo ra'iisul wasaarihii shaqada laga eriyay ee Maxamed Xuseen Rooble. xubno ku dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ii sheegay in madaxweynuhu uusan rabin in khalalaasi uu ka abuuro dalka isla markaana uu barakiciyo shacabka balse taasi beddelkeeda waxay sheegeen in ra'iisul wasaare hore Maxamed Xuseen Rooble uu u bareeray in caawa uu diyaarsanayo ciidan iyo hub uu kula dagaalamo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhanka kale Villa Soomaaliya ayaa jawaab kulul ka bixisay hadal maanta ka soo yeeray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. agaasimaha madaxtooyada ee dhinaca warfaafinta Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo wareysi bixiyay ayaa ka hadlay afgambigii fashilmay ee xafiiskooda lagu eedeeyay. agaasima Cabdirashiid ayaa beeniyay eedii ka timid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ahaa in inqilaab dhicisoobay xafiiskiisa lagu sameeyay balse la fashiliyay. xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkeysanaya in Rooble dambi loo haysto oo xalay madaxweynaha shaqo joojintii uu ku sameeyay weli ku adkeysanayo. Cabdirashiid ayaa shuruucdii dalka inuu ku xadgudbay ku tilmaamay hadalkii uu ra'iisul wasaare hore Rooble ku yiri ciidankii aniga ayay iga amar qaadanayaan. ugu dambeyn war-saxaafadeed caawa ka soo baxay beesha caalamka ayaa madaxda Soomaaliya loogu baaqay inay danta dalka ka hormariyaan wax walba ayna dejiyaan xiisadda siyaasadeed ee kacsan iyo inay ka joogsadaan daandaansiga iyo adeegsiga xoogga ah oo wiiqi kara nabadda iyo xasiloonida dalka. saaxiibada beesha caalamku waxay marar badan ku celceliyeen walaac isa soo taraya ay ka muujiyeen wax isdabamarin xagga habraaca iyo dib u dhaca hanaanka doorashada Soomaaliya. waxaa laga maarmaan ah in degdeg loo hirgeliyo heshiisyadii 17 September 2020 iyo 27 May ee sanadkan ee saldhiga u ah doorashooyinka iyadoo aan lagu sameyn wax carqalad dheeri ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay beesha caalamka.